xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka jamhuuriyadda Somaliland oo habeenkii xalay had munaasabad ku qabatay magaalada Caynaba gaar ahaan hordhalka caalamiga ah ee Caynaba waxay ku wacyigelinaysaa barashada dastuurka iyo waliba ku dhaqankiisa munaasabadan ayaa waxa goob joog ah wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka maamulka gobolka Saraar kan degmada Caynaba iyo bulshooyinka ku dhaqan gobolka Saraar qaybaheeda kala duwan munaasabadan ayaa ugu horeyntiiba waxa ka hadlaysa markaasina uu iftiimay dadka ku dhaqan gobolkani qiimaha uu leeyahay barashada dastuurka qaranka jamhuuriyadda Somaliland isla markaasina ku bogaadiyay inay bartaan dastuurka jamhuuriyadda Somaliland saraakiisha wasaaraddaasi wuxuu baan runtii doonaynaa inaanu dul marno ujeedadaan u soconay oo gobolkan Saraar iyo gobolada kale Somaliland qaarkood baan u mareynay inay tahay sidii wasaaraddu waxa weeye ay rool ugu yeelan lahayd gobolada waxa daba la toonsan yahay inaanay dadkii reer Somaliland ilaa markii dastuurka aftida loo qaaday dadku ansixiyeen inaan waxa weeye la faafinin oo aan waxa weeye la dabagelin oo dadku aanay aqoon fiican aanay runtii u lahayn tiibaanu maanta wadnaa taasaa waxa daba socota dadka waxa weeye markay dastuurka bartaan ay sharciga bartaan waxay ogaanayaan waxay iyagu xaq u leeyihiin waxa kale ogaanayaan waxa qarankan uu ku leeyahay waajib adhanka kale dadka ku dhaqan gobolkaasi Saraar ayaa iyaguna si diiran u soo dhaweeyay barnaamijkan wacyigelinta dastuurku inuu wax qaali yahay ummadu walibana ay wax ay ku dhaqanto waxa ugu horeeya dastuurka runtii caawa waxaynu baranay wax weyn oo aynaan aqoon dastuurkii jamhuuriyadda Somaliland oo in ka badan 30 qodob halka laynooga akhriyay waligeen intaan leego laynoo akhriyo iyo meel lagu akhriyo toona mayna arag waxaan leeyahay wasiir ana Soomaaliyeena ka koowaada ana buu dastuurku sheegaya ka labaad inuu Carabiga yahay ka saddexaadna inuu Ingiriis leeyahay farqadka koowaad waxa qaatay Ingiriisi ka labaadna waxa qaatay Ingiriisi ka saddexaad waxa qaatay Ingiriisi dadka wax la jimba galay waxa filayaan Ingiriis ina gala waan soo dhaweynaynaa dastuurkan caawa halkan la inoogu qabtay xalfadda waxaan aad ugu faraxsanahay dastuurkan halkan caawa la inoogu qabtay ee ay inoogu qabteen wafdida ballaaran ee gobolka inoogu timi caawa waxay noo tahay farxad weyn bay noo tahay maadaama dastuurkii jamhuuriyadda Somaliland caawa halkan lagu soo bandhigayo oo lagu hoga tusaaleynayo bal dadku inay fahmaan waxa uu dastuurku yahay ugu dambeyntiina waxa munaasabadaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka iyo barasaabka gobolka Saraar oo labaduba ku dheeraaday muhiimadda uu leeyahay barashada dastuurku runtii caawa waxa weeyaan waxay bulshadu ka faa'iideysatay barashada dastuurka oo in fara badan halkan laydinka faahfaahiyay taasoo runtii muhiimad aad u weyn iyo qiimo badan u leh bulshada aad bay muhiim u tahay qofka shakhsigu inuu ogaado waxa xaq loogu leeyahay iyo waxa aan loogu lahayn dastuurku waa waxa soo maray maraaxiisha kala duwan markii aynu la soo noqonay xornimadeennii waxa ummadeenna u muuqatay inay samaysato qaanuun iyo sharci dastuur ay ku hogaamiso dalka ay xuquuq ku kala yeelato iyo kala dambeyn wuxuu soo maray maraaxiil kala duwan oo laga soo sheekeeyay oo qarameedkii ka mid yahay oo uu ka badnaa 130 qodob marba uu inaha maruu 156 ahaa aakhirkiina lagu soo shaandheeyay oo lagu soo gabagabeeyay waxa weeyaan 130 qodob annaguna muhiimadda uu leeyahay iyo mas'uuliyadda nala saaray baa noo muuqatay inay muhiim tahay in shacbiga loo sameeyay dastuurku gaadho oo gobol walba aanu gaadhsiin وصفيا ذا نيل تلفزيون كعالمي قاعد بدعس 24 TV عينبا